waa sagootinta cutubyo ka tirsan Commandos-ka Gorgor kuwaasi oo loo qaadayo dalka Turkiga si halkaas ay ugu sii dhameystirtaan tababar in muddo ay ku qaadanayeen gudaha magaalada Muqdisho. Ciidamadan ayaa ah dufcadii 8aad kuwaasi oo ka mid noqon doona Commandos-ka Gorgor, waxaana munaasabadda lagu soo gootinayay goobjoog ka ahaa wasiirka difaaca ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiil ka socotay dugsiga tababarka ee Turkisom. Ugu horeyntii taliyaha ciidanka dhulka Jenaraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda soo gootinta ciidamadaasi loo sameeyay. ciidankan maantay baxaya waanu sagoontayno runtii waa ciidan aanu ku faraxsannahay, waa ciidan aan jecelahay, waa ciidan tababar 3 bilood ku qaatay kulliyadda Turkisom kadibna waddanka Turkiga tababar ku soo qaadanaya. Waxay isugu jiraan saraakiil xigeen iyo askar dabley. Waa ciidan aan rajaynayno waxay soo barteen inay dalka u soo baranayaan, dalkana gelinayaan insha Allah. Waxaan idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba Ilaahay nabad ha idinku geeyo, tababarka nabad ha idinku soo dhameeyo, adikoo nabada dalkiina ku soo laabta, eheladiinna iyo caruurtiinna adikoo nabada Ilaahay ha idinku soo celiyo. Dhankiisa wasiirka difaaca ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in ciidamadan looga fadhiyo difaacidda dadkooda iyo dalkooda haddii ay dib ugu soo laabtaan ayna soo qaataan tababarka ay ku soo qaadanayaan dalka Turkiga. ciidamada maanta baxayo waxay heleen fursad malaayiin Soomaaliyeed ay helin. waxaan ka rajaynayaa insha Allah inay si fiican u soo tababartaan, tababarkoodana la soo noqdaan, dalkana ku xoreeyaan cadowga, ilaaliyaan midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed, ilaaliyaan badda, cirka iyo dhulka Soomaaliyeed iyo gobonnimada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan. yaan ka rajaynaynaa, waxaana ka rajaynaynaa in insha Allah ay tababaraan ciidamo kale oo fursad u helin inay aadaan wadamo kale. shalay waxaan qaabilnay ciidamo oo ka imaaday, maantana ciidamaan sagootinayna. dadaalkaas wuu soconaya, xiriirka labada dal sidaas u soconaya. insha Allah intaan ka gaarayno ciidan qaran oo ku filan dalkan inuu ilaaliyo intaan ka helayno. fursadan ka faa'iidaystaan idin leeyahay, safar salaama idin leeyahay, ilaahayna nabad ha idinku keeno. midda kale aan idin oranaya waxaa way niidin wanaajista. shaqadaad ku jirtaan waa shaqo qaran, waa shaqo markaad aad u niyeysato oo gaarayso cibaado oo ilaahay ajar ka siinayo. inama al-a'maalu bin-niyaat baa xadiidka u ahaa. niyadaada haddaad hagaajisato aad ugu talagasho shaqada aad qabanayso inaad qarankaada iyo ummadaada Soomaaliyeed iyo soo kabashadeeda iyo jiritaankeeda niyadaada aad ku wanaajisato oo habeenkii ku seexato, maalintii ku soo jeedo oo ku shaqayso oo ilaahayna aaminto, ilaahay wuxuu ku qorayaa shaqada aad ku jirtaba inay cibaado tahay. Shalay ay ahayd markii dufcadii 7aad oo ka mid ah Commandos-ka Gorgor dib ay ugu soo laabteen gudaha magaalada Muqdisho, kuwaasoo in muddo ah tababar ku soo qaadanaya dalka Turkiga. waxaana dufcada maanta la qaadayo ay qayb ka yihiin ciidamada Commandos-ka Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Cabdifataax Muumin 5 TV Muqdisho.